maamulka cisbitaalka degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa faahfaahin ka bixiyay habsami u socodka adeegyada caafimaad ee uu bixiyo cisbitaalkaasi. Cali Cismaan Gaash oo ah maamulka cisbitaalka degmada Sheekh oo aanu ku booqanay xafiiskiisa ayaa ka hadlay dhinacyo badan sida daawooyinka, gaadiidka iyo dhakhaatiirta joogta cisbitaalka. waxaana uu sheegay dhammaan qaybihii loo baahnaa ee cisbitaalku inay shaqaynayaan sida qaybaha caruurta, dhalmada iyo waliba bukaan jiifka. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa cisbitaalku run ahaantii adeegyada uu bixiyo way badan yihiin. wuxuu bixiyaa adeegyo badan, inpatient iyo outpatient waxa la yiraahdo. Inpatient oo bukaan jiifkiya, outpatient oo dadka bukaan socodka ahaa, qaybtii caruurta, qaybtii dadka waaweyn, qaybtii dhalmada, intaas soo qaybsamaa. adeegyada kale aan bixino waxaa ka mid ah qaybtii farmasiga, qaybtii shaybaarka. sidoo kale waxa uu sheegay in iminka hay'adii ka caawin jirtay xagga daawooyinka uu mashruuci ka dhamaaday. wasaaradda caafimaadka run ahaantii ma bixiso daawooyin cisbitaalada ay ugu talagashay xarumaha caafimaadka, laakiin annaga oo kale gobol ahaan gobolka Saaxil hay'ad baa qaabilsanayd dawooyinka cisbitaalada ay geyso. marka hay'adii wax ku yara dhacay gaab oo mashruuci baa ka dhamaaday. si kastaba ha ahaatee, magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa ah magaalo maalinba maalinta ka dambaysa ay ku soo badanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan, isla markaana ay ku sii fidayaan qaybaha kala duwan ee deegaanka, gaar ahaan dhinaca guryaha iyo dhismayaasha qaybahooda kala duwan. Saciid Axmed Tumreyse, Sheekh.